بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا معهد كإيجار سوماليا. ما أنتي دبلومادي هيومن ريسورسيغا هاي دي إيج آر إم كا سيمستر كيس كواد مادة كميدا مادوين كا هيومن ريسورس ديفلوبمنت تيجا اللي يراهدو بعرفنا إن وحير عن كشرحنا إن شاء الله. هيومن ريسورس ديفلوبمنت تيجا سيدا صحدا وجيت كوحوية هاي إن شقاله لغو سمايا هورمرين يعني شقادي شقالها أي قبل لها إن هرمون اللي سماه شقاله إن لجارسيو شقادي أي قبل لها إن لجارسيو وح definition كhuman resource development تيجا أولوسو قابل مرمرك قاركود HRD وح نقطة و set of systematic and planned activity designed by an organization وهاب إزدوايال systematic مرة دارتوا وح إزدوايال أو القرشية أي نقابيس شركة to provide its members si ay ugu soo bandhigto shaqaalaheeda ka shaqeeya with the necessary skills to meet the current si ay u gaaraan xirfadii current job demands shaqadii hadda taalay baahidii taagneed ee shaqada hadda si ay u gaaraan ama future job demands shaqada mustaqbalka waxa ay dalbanayso si loo gaaro way shirkadda ay lacag iyo dhaqaale ugu luminaysaa in la helo HRD tusaale ahaan waxaa la rabaa in tababar shaqaalihii la siiyo laakiin tababarka maxaa ka dambeeya waxaa la rabaa in la helo wax tababarka ka dambeeya tababarku waa wax kooban classrooms baa la tagaa tababar baa la qaataa ama shaqadii maxaan ku raadin sheeg wataan ku soo arnahay human resource managementiga tababarka sida uu yahay shirkadda dhexdeeda tababar lagu qaataa shaqadii baa tababar lagu qaataa tababarku waa wax kooban waa cid la soo kireeyay ama cid kula joogtay oo tababar yar inta ku siisay iska noqotay waxa rabaa wax ka duwan oo ka ballaaran oo ka weyn oo shaqaalaha mar walba daba socda kaasna waxay noqon kartaa HRD-ga marka employee needs extend beyond the training classrooms tababaradii la siin jiray wax ka baaxad weyn oo ka baahsan oo ka guda weyn baa la rabaa in la siiyo markaas waxay noqotaa human resource development human resource development waxa kamid ah in la sameeyo coaching waxa kamid ah group work waxa kamid ah problem solving waxa kamid ah wax joogto ah cilada in la soo bandhigo maxaa sameyn lahaydeen sida u shaqeyn lahaydeen in shaqaalihii la isku xiro in shaqadii groups loo sameeyo oo development-ga sida loogu sameeyo waxa sidoo kale to la siiyaa shaqaalaha basic employee development oo ah in casharro kooban oo yar qofka maskaxdiisa lagu dhisayo loo diro sidoo kale to waxa la sameeyaa structured career development waxa shaqaalaha loo diyaariyaa hab socod shaqo ay iyaga ku socon lahaayeen yani maanta haduu waardiyo ku yahay bari xagee uu tagayo waa inaad diyaarisid development-ka kamid tahay xiriirka ka dhaxeeya maxay tahay HRM-ka iyo HRD-ga human resource development-ga ama HRM-ka waxay keentaa shaqooyinkii yani waxay abuurtaa shaqooyinkii shirkadda looga shaqeyn lahaa human resource development-gana waa shaqo kamid ah human resource management iyada waxay keentaa qaabkii loo horumarin lahaa shaqaalaha laakiin maamulka shaqaalaha shaqadii shaqaalaha human resource management iyada si guud ahaan waxay u keentaa shaqadii la rabay in la qabto waxay leedahay primary function iyo maxaan ku raadey secondary function primary function of human resource management waxa kamid ah human resource planning waxa kamid ah waa soo aragnay equal employment opportunities staffing recruitment selection isugu jira compensation oo isugu jira maxaan ku raadey xaqsiintii shaqaalaha iyo maxaan ku dhahay salary shaqaalaha la siinayo iyo benefits oo shaqaalihii maxaan ku raadey aan hore u soo aragnay oo aan ku aragnay human resource management-ga employee relations iyo labor relations-ka health safety and security purposes-ka ama qaabkii shaqaalihii xagga caafimaadka amniga iyo maxaan ku raahdaa ishaq loo eegi lahaa human resource development-ga sidee baa shaqaalaha loo horumariyaa functions-kii marka human resource management-ga ayay kamid tahay waxa marka human resource management-ga aan aadno function-keedii kore haddana waxa kamid ah sidee baa shaqaalihii loo horumariyaa organization and job design and job design sidee baa shirkadda loo design gareeyaa sidee baa shaqaalaha loo design gareeyaa performance management iyo performance appraisal systems research and information system sidee baa shaqaalihii dhexdoodii loogu sameeyaa research baaritaan haddii cilado jiraan oo kaleeto sidee loo ogaadaa iyo information systemka HRD functionska iyada markaa eegno training and development tababar iyo horumarin joogto ah organizational development company in la develop gareeyo dhamaantiis shaqaalihii iyo shirkadii shaqadii taalay
in labadiiba la develop gareeyo shaqaalihii kaliya haddaan dhahno waa develop gareynaynaa de shaqadii baanu ka tagaynaa marka labada dhinacba in la develop gareeyo sidoo kaleeto waxaa iyadana imaanaysa sequence of career isku xigitaanka shaqada in iyadan development lagu sameeyo shaqaalihii labada sano saddexda sano ku ahaa waardiyaha waa in aad u leedahay qaab uu kusoo gudbi karo oo waardiyihii kaga soo gudbi karo markaas waxaa la yidhaahdaa career development waxaan rabnaa inaan eegno xabxabad u kala qaadno training and development-ga waa tii jabtarka aan kusoo aragnay maxaan ku idhahdaa ii sheeg ka mid ahaa HRM-ka haddii training and development-ga aragto inaad si fiican usii ogaatid jabtarkaasaad dhegeysan kartaa insha allah laakiin ujeedada waxay tahay in orientation shaqaalaha la siiyo in skills and technical training la siiyo xirfad iyo qaab shaqo la siiyo in la coach gareeyo shaqaalihii la dul socdo in lala taliyo shaqaalihii oo counseling loo sameeyo and so on training and development-ga waa ka gudbayna organizational development-ga aan u tagaynaa organizational development-ga waxay tahay in la eego shirkadda waxay leedahay level kooban oo xagga maamulka inta kore oo maamulka oo la yiraahdo top levelka aad bay u yar yihiin top levelka wixii ka hooseeya oo middle iyo low levelka ka guda ballaaran kana badan sidaa awgeed waxaa la rabaa in la eego organizationkii dhammaantiis sidee bay shirkadda u shaqeeyeen maxaan ku irahdaa ii sheeg sidee baa maxaan ku irahdaa ii sheeg maamulkii iyo shaqaalihii sidee bay isla shaqeeyaan waxaa la rabaa in la focus gareeyo both macro levels and micro levels si aduu qaadanayo wax yar oo ka mid a shaqaalahana inaad focus gareyso si guud ahaan oo dhammaantoodna ah inaad u focus gareyso HRD-ga marka waxaa la rabaa inay noqoto maxaan ku irahdaa change agent wax ka bedel shirkadda dhexdeeda in wax laga bedelo career development-ga waa tii haddaaya aan niri organizationka waxa uu sameeyaa waxay tahay ongoing process by which individually progress through series of changes wuxuu sameeyaa serial changes of jobs until they achieve their personal level of maximum achievement waxay eegaan yani waxaa la eegayaa shirkadii shaqaalihii joogay shaqada uu hayo xageeba uga sii soconaya ilaa iyo qofka uu gaaro meel uu yiraahdo meeshaasaan u socday meeshiina waa gaareen waxaan rabay inaan maamulo noqdo maamulo waa noqday waxaan rabay inaan supervisor noqdo supervisorka waan noqday maalinta imaanaya waardiyan aha maanta supervisor baan ahay and so on sidaa awgeed career development-ga waxaa lagu eegaa career planning waxaa lagu qorsheeyaa shaqaalaha kula jooga intuu kula joogi doono meesha shaqadiisa ay noqon doonto waxaa sidoo kale la sameeyaa career management oo ah shaqaalihii in la manage gareeyo shaqadoodii يعني إن شغاله سووا واردية إن هذا كله سوبرفايزر كي محاكو هذا سيلسك أو كلا هذا جين مركا وأنا مانج جريسو قفك وارديها وحتى كرا إنه نقضه محاكو هذا إيش كولكتر أو كلاته بنقول كلام مركي لا إيجو هيوم ريسورس ديفلوبمنت إيشوز كدت كبدنا الشركة ده أنا أدك أوريري وحكم ده استراتيجيك مانجمنت هيوم ريسورس ديفلوبمنت سيدرس وافجيا يعني سيدي بيسوق إيمان كران waxaa ka mid ah human resource development-ga marka horumarinta shirkadda shaqaalihii lagu sameynayo shirkadda ay sameynayso iyo supervisorskii role-koodii oo ahaa inay kor joogaan oo saxaan oo hagaajiyaan oo toosiyaan oo ay iyaga soo gudbiyaan oo yiraahdaan ninkaas wuxuu u qalmaa in la dalacsiiyo iyo sidee bay isu keeni karaan human resource development-ga oo HR-ka xafiiskiisii laga soo gudbiyo waxa kaleeto oo iyadana marmarka qaybtood caqabad noqon karta organizational structure-ka company-ga siduu u dhisan yahay iyo human resource development-ga iyadana caqabad bay noqon kartaa marka waxaa la rabaa organization-kii structure-ka u dhisnaa in loo jilciyo in shaqaalihii lagu horumarin karo oo development loogu sameyn karo waxaana development-gaas ka mid ah maxaan ku irahdaa ii sheeg in la sameeyo career development strategic management and HRD xirfadda maamulka xeeladda ay shirkadda leedahay yani istaraatiijiyadii shirkadda ay lahayd iyo sidee bay isu qabsan karaan ama isu qabadsiin kartaa HRD-ga istaraatiijiyadda company-ga waxay ensure gareysaa effectiveness for the foreseeable future yani mustaqbalka xagee baa la gaaraya example ahaan 3 sano ilaa 5 sanadood xagee baan gaari doonaa
HRD-gana waxay iyadana qiimeysaa mustaqbalka shaqaalaha maxay soo saari doonaan, xaggee bay gaari doonaan, sidee baa loo soo saari doonaa. yacni shaqaalihii waxaa la rabaa in loo fududeeyo human resource managementigii kuu joogayba waxaa loo fududeynayaa mustaqbalka istaraatiijiyadii noo taalay ee 5 sano ilaa iyo 3 sano ilaa 5 sano ahayd. waxaa la rabaa istaraatiijiyadii inaad ku fuliso marka human resource developmentiga. haddii tusaale ahaan la yiraahdo 3 sano gudahood waa inaan soo saarno 10 baabuur, waa inaa shaqaalihii horumarin ku samaysid siday 10ka baabuur usoo saari lahaayeen. marka sidaas la rabaa inaad isu waafajisid. shirkadahana badanaa ku adag. supervisorska shaqada supervisorska ay qabtaan iyo HRD-ga waxaa laga rabaa in program iyo hab wada shaqeyn in la sameeyo. waxaa la rabaa in supervisorska loo jilciyo siday u sameyn lahaayeen on the job training. waxaa la rabaa in supervisorska aad ka dhigtid si human resource development u socoto coaches, mentors waa inaad ka dhigtid. waa in coaches aad ka dhigtid dad wax tababari kara. waa in supervisorskaaga ay yihiin mentors, dad lagu dayan karo. waa inay yihiin counseling, dad la talin kara shaqaalaha caqabadaha haysta, haddii ay tahay caqabad xaafadda iyo haddii ay tahay caqabad shaqada labadaba. waxaa la rabaa in career and employee development, in supervisorska ay ka fakaraan shaqaalahooda sidee bay u horumarin lahaayeen, sidee bay kor u geyn lahaayeen, iyo sidee bay shaqaalahan yacni ay shaqadooda ay ugu dalacsiin lahaayeen, sidee bay ugu diyaarin lahaayeen booskooda inay iyaga bedelaan hadhow. waxaa sidoo kaleeto la eegaa frontline participants, qolyaha ugu badan ee ka faa'iideysta in ay human resource fuliyaan waxa weeye supervisorska. supervisor kasta waxaa khasaba in uu fuliyo human resource developmentigii wixii loogu talagalay. organizationka iyo structureka sidee bay organization structureka iyo human resource developmentiga sidee bay isu qabsan karaan, sidee baa la rabaa in la isugu keeno. company size-ki iyo organizationka intuu leegyahay iyo inta uu gaarsiisan yahay bay ku xiran tahay. marka aan leenahay structureka waxaa jira single structure iyo waxaa jira multiple structures. waxaa jira heer isdaba socod laba nooca iyo heer isdaba socod halla ah, yacni hal lug inay socoto iyo in heer isdaba socod dhinacla ah oo laba group ay dhinac socdaan oo kale shirkadda haddii ay leedahay. waxaa la rabaa shirkadda in loo diyaariyo sideeba organizationka uu ugu dulqaadan karaa haddii la sameeyo human resource development shirkadda dhexdeeda shaqaalihii lagu sameeyo. waa in loo diyaariyo. haddii marka ay tahay single structureka cillad weyn baa ka imaanaysa oo badanaa single structureka waxa waaye 5 qof oo isku xiga baa midba mid ka sarreeya, yacni qofna ma daleeci karo. taas way ku adag tahay. laakiin hadday tahay multiple structure hierarchy hadduu jiro, isdaba socod ballaaran hadduu jiro, markaa way sahlanaataa. istaraatiijiyadda markii la eego istaraatiijiyadda human resource developmentiga iyo istaraatiijiyadii guud ee shirkadda waxaa la rabaa inaysan ayan iska kaadiidin. istaraatiijiyadii human resource developmentiga iyo istaraatiijiyadii HRD-gana waxaa la rabaa inaysan iska kaadiidin. casharkeena halkaas ku eegyahay jabtarkeenaas. haddii aad wax su-aala ka qabtaan insha allah way soo weydiin kartaan oo walaalkiin Saciid Abshir. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.